الله أكبر سوماليلاند هنولاتو سوماليلاند هنولاتو كل مياه قوليستو كل مياه قوليستو بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مركبوا الرئيسة لهوينا وهدوين تبوها حزبنا كل مياه كيسوق صوب حضي سلام بدين سلامية بدين سلامية أنا أقول لبيرو من الدرورانية صدق عشاء هرسن صدق هذا عشاء هرسن قولي هو دم هذا خطبتي وايد دم هذين سوسبحي هو دم هذا waxay nu ka shaqayn doonaa codkeenii sidaynu maalkabada u diyaar garayno waynu sanaadiiqda ugu ridnaayeen u diyaar garoobinaa soo maaha soo diyaar ma tihidin waxaynu u baahannahay inaynu intaa isabaabulo oo aynu codkeenna sii diyaar garayno oo qof walba meeshii uu ka codaynayaan laga waayin maalinta 13keeda waxaynu doonaynaa marka ugu horraysa dalkan horumar badan baa madaxweyne Silaaya gaarsiiyey horumarka haddaa rabtaan inuu sii socdo waxaynu u baahannahay inaynu Musabixi Cabdi doorano war soo maaha waynu dooranayna Musabixi soo maaha madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland buu noqonayaa soo maaha maalinta codka cidnayaan la waayin maalinta codka cidnayaan la waayin miyaa cid la waaya codkeenu soo diyaar maaha waxaynu u baahannahay xisbiga kulmiye horumarkaas socda ee ballaaran ee madaxweyne Silaaya uu dalka soo gaarsiiyey inaynu halka ka sii ambaqaadno waxaan kalsooni weyn ku qabaa Musabixi Cabdi markuu noqdo madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland inuu dalku horumar ka sii ballaaran sii gaarayo in tacliinta tayadeeda sare loo qaadayo in caafimaadka sare loo qaadayo inaynu dhaqaalaha sare uga qaadayo in dhalinyarada shaqaalaynteedu sare u kacayso codkayna waxa ku xidhan mustaqbalkiinni ayaa codkiina ku xidhan dhalinyaro u badan dadka codaynaya dhalinyaro iyo dumar baa u badan khaasatan dhalinyaradu waxay u baahan yihiin meesha mustaqbalkeedu ku jirta inay u codeeyaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inay u codaysaan kuma Musabixi baa u codaynaysaan iyo Cabdi Saylici waxaynoo ballana maalinta 13keeda inaynu isu soo baxno oo codka dhiibanno inaynaan habsaamin inaan kaadhalkeena intaan sii adkaysanno in dadka magaranaysa waxba qori garanayn loo sii sheego sida u camalamadinayaan oo aan codku ka khaldamin waxaynu u baahannahay maalinta soo socota 13keeda inaynu dhaqso u dhaarin doonno madaxweynaha shanaad ee Musabixi Cabdi soo maaha قول كل مية قول